kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka ol banaadir waxaan daawadayaal halkaan idinkugu soo gudbinaynaa sida uu dhacay qaraxii galaaftay nolosha dad badan ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxay ahayd xilli hore oo subax ah dadkuna waxay u kala dareereen shaqada maalinlaha ah taasoo ay ku maareeyaan noloshooda dhallinyaro badan waxay u socdeen goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha mar qura ayaa waxaa la maqlay dhawaqa qarax xooggan kaas oo ka dhacay isgoyska Axis Control oo ah waddada laga soo gala magaalada muqdisho iyo tan looga baxo waxaa halkaas ku yaalla suuq weyn oo ay ku badan yihiin dadka danyarta ah meel aan sidaas kaga fogayna waxaa degan ciidan booliis ah kuwaas oo canshuur ku qaada tiro dad ah oo ka badbaaday qaraxa ayaa sheegay in qaraxu uu ahaa mid xooggan oo sababay dhimashada ku dhowaad 100 ruux oo dana kala duwan uga soo tegay guryahooda daqiiqado kooban gudahood ayaa dadkii goobta ku sugnaa waxay noqdeen kuwa dhintay kuwa dhaawacmay iyo kuwa naftooda goobta kala baxsaday oo alle uu ka badbaadiyey qaraxa sidoo kale waxaa burburay guryo ay degganaayeen dad shacab ah iyo goobo ganacsi oo ka agdhowaa halka qaraxa uu ka dhacay waxaa kaloo la xaqiijiyey in gaadiid ay saarnaayeen dad rayd ah ay goobta ku basbeeleen inta la xaqiijiyey 80 ruux ayaa ku dhintay qaraxaas oo loo adeegsaday gaari weyn oo lagu soo raray walxaha qarxa sida ay sheegeen laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya oo goobta gaaray dadka dhintay oo shacab ahaa ayaa waxaa u badnaa arday saarneed gaari hoomey ah oo goobta marayay xilliga qaraxu uu dhacay kuwaas oo la sheegay inay ka tirsanaayeen jaamacadda Banaadir in ka badan 4 isbitaal oo ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa la geeyey dhaawacyada iyo dhimashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa waxay kaloo sheegeen in qaraxaas ay ku dhinteen injineero u dhashay dalka Turkiga oo qaraxaas bartilmaameedkoodu ahaa sida dad kale ay sheegeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo goobta gaaray ayaa waxa uu sheegay in qaraxaas uu ka xun yahay sida uu u dhacay iyo dhibaatada ka soo gaartay dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxa uu sheegay qaraxaas in ay ka dambeeyeen dad diidan nolosha dadka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir isaga oo sheegay in dadkaas ay yihiin qarax geystay kuwa meelo kale kaga soo duulay ummadda Soomaaliyeed madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa labaduba ka tacsiyeeyay dhibaatada soo gaartay shacabka Soomaaliyeed ee halkaas ku sugnaa badnaanshiyaha tirada dhimashada ee dadka rayidka ah ayaa sababteeda waxa la sheegay inay ahayd goobta uu qaraxu ka dhacay oo ahayd mid aad u mashquul badan iyo halka uu ka dhacay qaraxu oo ahayd Axis Control oo ah waddo isku xirta Muqdisho iyo Afgooye sidoo kalena dad badan ay halkaasi ganacsi ahaan u soo aadaan marka laga soo tago tacsida ay direen madaxda dawladda Soomaaliya ma jiraan wax intaas ka baxsan oo ay ka hadleen sida qaraxaas halka laga soo abaabulay iyo ujeedada iyo goobta loo waday intaba balse dad kale oo ka madax bannaan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaas bartilmaameedkiisu uu ahaa injineero u dhashay waddanka Turkiga kuwaas oo marayay xilliga qaraxu uu dhacay goobta iyadoo injineeradu ay ku geeriyoodeen qaraxa marka uu dhacay iyaga iyo waliba ilaalo ay wateen oo Soomaali ah oo xilligaas gaariga la saarnaa qaraxyada ka dhaca waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxay aad u bateen tan iyo markii la bilaabay dhismaha waddadaas waxaana mas'uuliyadda dhismaha waddadaas qaadatay dawladda Turkiga oo injineerada la dilay ee u dhasheen iyada marka laga soo tago eedeynta dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay in al-shabaab qaraxaas ay ka dambeeyeen ma jirin cid si rasmi ah qaraxaas u sheegatay mas'uuliyaddiisa inkastoo ay aad u badan tahay dhibaatada qaraxaas uu geystay muddo gaaraysa 12 saac ayaa waxaa socday gurmadka loo fidinaya dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi kuwaas oo lagu daadgureynayay dhaawacyada iyo dhimashadaba isbitaallada ku yaalla magaalada Muqdisho halka dad kalena ay baadi goobayeen dad ehelkooda ah oo ay waayeen in ay ka mid ahaayeen dadka qaraxa ku dhintana ay u maleeyeen baadigoobka ayaana waxa uu yahay mid saacado badan qaatay inkastoo laamaha amniga dawladda Soomaaliya ay sheegeen in burburka qaar laga baadigoobayo dadka ay waxyeelada iyo kuwa lagu la'yahayba ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu booqday xarunta gurmadka degdega ah oo ay ka socdaan isku dubaridka howlaha lagu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgoyska Axis Control ee Muqdisho ra'iisul wasaare Khayre oo xarunta gurmadka kula kulmay guddigii uu magacaabay iyo dhalinyarada dhanka farsamada kala shaqeynayay ayaa ka dhageystay warbixin la xiriirta howlaha ay wadaan ee lagu gurmanayo dhibanayaasha dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxa waxa uuna kula dardaarmay in dadaalkooda dhan ay iskugu geeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dhaawacyadaas loo daryeelo xarunta guddiga gurmadka degdega ah ayaa waxaa si habsami leh uga socda dadaalada loogu gurmanayo dadka dhaawacyada soo gaaray iyadoona dhaawacyada qaarkood
loo diyaarinayo in dalka dibaddiisa loo qaado si halkaas loogu soo dabiibo xaaladdooda caafimaad. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa booqday isbitaalka Erdogan oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee lagula tacaalayo xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dhaawacyada waxyeelladu ay ka soo gaartay qaraxa. waxa uuna kula kulmay maamulka isbitaalka oo warbixin ka siiyey xaaladda bukaannada halkaas la gaarsiiyey. bukaannada xaaladdooda caafimaad aan dalka wax looga qaban karin ayaa loo diyaarinayaa in loo qaado dalka dibaddiisa, iyadoona muqdisho ay soo gaareen diyaarado loogu talagalay dadkaas in loogu qaado waddanka dibaddiisa, waxaana goobaha loo qaadaya qaybka ah waddanka Turkiga, halkaas oo lagu dabiibayo xaaladdooda caafimaad. dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in wixii ka dambeeyey markii dawladda Soomaaliya ay xirtay waddooyinka laga soo gala magaalada Muqdisho, isla markaana la kordhiyey ciidamada sirdoonka ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho dhexdeeda, waxaa sii xoogaysanaya hoos u dhaca qaraxyadii iyo dilalkii ka dhici jiray gudaha magaalada Muqdisho. inkastoo qaraxa dhacay ay ku sheegeen in uu ahaa mid soo dhaafi waayey goobtaas, taasna ay uga dhigeen sabab, inkastoo horey ay u jirtay warar sheegayay in qaraxaas uu bartilmaameedkiisu ahaa gaari ay la socdeen injineero Turkiya oo halkaas lagu qarxiyey. muddo ku dhow sanad, dawladda Soomaaliya waxay xoojisay koontaroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo kuwa looga baxo, iyada oo sabab uga dhigtay in dhibaatada ugu badan ay geystaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ay sabab u tahay halka laga soo gala Muqdisho oo inta badan ammaankeeda ay sheegtay dawladdu inuusan ahayn mid la hubiyey. gaadiidka isqarxiyana lagu diyaariyey meelo ka baxsan gobolka Banaadir sida labada Shabeelle, waxayna dawladdu xilligaa wixii ka dambeeyey halkaa geeday ciidamo dheeri ah, iyadoona gaadiidka yaryar baaritaanno dheeraad ah ay ku sameeyaan ciidanka dawladda Soomaaliya. intaas wixii ka dambeeyena waxaa yaraaday qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. laakiin qaraxii ka dhacay isgoyska Ex-Control ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu noqday mid galaaftay nolosha dad badan, waxaana mar kale shacabka Soomaaliyeed ay xasuusteen dhacdadii lagu hoobtay ee ka dhacday isgoyska Soobe 2 sano ka hor. marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca la geeyey isbitaallada qaar ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa jira dad badan oo qaraxaas lagu waayey, kuwaas oo dadkoodu ay sheegeen in ay ogaayeen keliya markii ay guryahooda ka soo baxayeen. qaraxa ka dhacay isgoyska Ex-Control ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu eg yahay qaraxii 2 sano ka hor ka dhacay isgoyska Soobe marka loo eego awoodda qaraxa iyo meesha uu ka dhacay oo ahayd mid mashquulkeedu uu badan yahay oo ay ku sugnaayeen boqolaal shacab ah, inkastoo khasaaraha labada qarax uusan isgaarsiisnayn. waa 18 maalin kadib weerarkii labaad oo Muqdisho ka dhaca, waxayna weeraradaani soo afjareen muddo bilooyin ah oo Muqdisho wax qaraxa uusan ka dhicin, jawi nabad ahna ay ku jirtay. waa mar kale iyo shacabka Soomaaliyeed oo wajahaya halis amni oo weyn, taasi oo aan la ogeyn wakhtiga ay soo idlaan doonto. qaraxa ka dhacay isgoyska Ex-Control ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay kii labaad ee ka dhaca magaalada Muqdisho oo waxyeello badan u geysta shacabka Soomaaliyeed. dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxaan markii ay qiimeeyeen uu awoodda iyo saamaynta uu reebay ay la eg tahay tii ka dhalatay qaraxii weynaa ee ka dhacay isgoyska Soobe 14 Oktoobar 2017 oo xilligan laga joogo muddo gaaraysa 2 sano. qaraxaan ayaana waxay ku tilmaameen inuu yahay mid ka mid ah qaraxyadii ugu waaweynaa uguna halista badnaa ee soo wajahay shacabka reer Muqdisho, waxyeello badanna u geysta shacabka. maadaama la ogaa qaraxii 2 sano ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho dhibaatada uu reebay inta ay la ekeyd saamaynteeda, taas oo muddo sanado ah xitaa aanan la iloobi doonin. laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa dhawaanahanba waxay dadaal dheer ugu jireen xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho, iyagoona dhowr mar ku celceliyey inay ka hortagi doonaan wax walba oo liddi ku ah amniga, taas oo la doonayo in wax loogu dhimo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho ku nool wakhtigan. balse dadku waxay isweydiinayaan sida ay ku sii socdaan qaraxyada ka dhacaya Muqdisho, kuwaas oo markii muddo la joogaba shacabkuna ay hilmaamaan mar kale la arkayo qaraxii oo dhacay. laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa waxaa looga fadhiyaa in ay ka jawaab celiyaan qaraxaasi iyo sida uu ku yimid Muqdisho gaarigaas isqarxiyey, maadaama gaariga isqarxiye la sheegay inuu ahaa gaari weyn oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxyeello badanna ay ka dhalatay markuu gaarigaasi qarxay. saraakiisha ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen ilaa iyo iminka in ay wadaan baaritaan kaas oo ku aadan sida uu u dhacay qaraxan iyo meesha laga soo abaabulay. dad badan oo Soomaaliyeed ayaana ka warsugayay laamaha amniga sida ay uga hadlaan ama uga jawaab celiyaan baaritaanka kadib. inkastoo hore loo ogaa qaraxyo noocan oo kale oo ka dhacay Muqdisho oo aan la ogeyn halka ay ku dambaysay baaristooda, keliyana madaxda ay sheegeen in baaritaankii uu socdo. daawada intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay qaraxii galaaftay nolosha dad badan ee ka dhacay magaalada Muqdisho
gaar ahaan isgoyska Axis Control halkaasoo ahayd meel ay dadku ku badan yihiin xilliga qaraxu uu dhacayna ay ahayd xilli hore oo subaxa dad badanna ay halkaasi ku sugnaayeen halka kuwa kalena ay saarnaayeen gaadiidka dadweynaha oo iyaguna qaraxu uu ku dul dhacay aad ku maasantihiin daawashada warbixinta iyo guud ahaanba warbixinada ka baxa janalkeena ano weli gaban yaro gurigaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anon kuntiyeelan weli iyo haddow guudkoy caddaaday dhaciyo guluf aan damayn galayos baan ku korayo habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan habeen labadiisa gelin gigiya qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo